dhimana qof walba nafta meel u soo jirtay ilaahay od aan horta Soomaali Maxamed Eray qaniis lahaa ayno qof tarada ma aragtay dad badan ayaa ku ciyaara habeen maalin ay baraha bulshada ku aflagaadiyaan iyagoo dhahaya waxa tahay qaniis haddase waxa uu go'aansaday inuu isdilo haddaba ninka aan ka hadlayo waa Hanad Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaano waan gariiray oo caan ka ah aalada TikTok kaas oo dhibaato kala kulmaya saaxiibadiisa ku xiran bartiisa TikTok haddaba si aad u sii daawato warbixinteena fadlan subscribe saar janalkeena soo kale muuqaalkan share dheh oo la wadaag asxaabtaada gariiray wiil dhalinyaro ah oo buuran sidoo kalena barta aalada bulshada ee TikTok ku soo bandhiga goobka ciyaar dad badan ay jecel yihiin balse caanimadiisa uu kala kulmay dhibaato badan oo sababtay in hilkiisa iyo saaxiibadiisa uu ka go'o waliba xataa uu naag shukaansan karin gabar ma shukaansado goobaha waxbarashada ma tago goobaha kale ee qoyskayga wajiga ma siin karo wuxuu ku jiraa xaalad karantiil ah taasoo sabab ah qaniisnimo lagu sheegay أنا سؤالش جوابته ديبا horta qoftaan hadda aan dacwada horta qof bin aadin ma badii tirta qoftaasna maanta waxa ahayn u sheegay magaciisa horta inaan sheego anaa qaataysiiso oo ay rabin magaciisa sheego qof oo cabsina ahaan أنا ربي مدرس إما معنا أفتي تصول فاقن لا تصول فاقة وحلا هرتوري عبد القادر سيسي أينو وحتى ما قان برادا waan gariiray ayaa qirtay in si qaldan uu ku soo galay baraha bulshada balse uu ka shalaayay wuxuuna si cad u sheegay inuu san cafin doonin aqri aduun qofkii ku tilmaama inuu yahay qaniis dhimana qof walba nafta meel u soo jirtay ilaahay od aan horta Soomaali Maxamed Eray qaniis lahaa ayno qof tarada ma aragtay uu dhiba manay afina maanta maalinta dambe sida qaniis isu qortiin amba wax xumada isu qorteen wallahi billahi oo talaaha fada iltaan ay wada fadhiyaan qof afineen maanta la bilaabo Soomaali Maxamed Eray qaniisnimada lahaa hadaan dhaafiyay maalinta waariyo jira marka aad ku jirto baraha bulshada waxaad la kulmaysaa dhibaato nooc kasta balse waxa uga gudbi kartaa si aad isku maareyso hadda si Hanad gariiray dhibaatada haysata ayaa kaliftay in xataa uu wadooyinka mari waayo haddaba daawade maxaad kula talin lahayd haddii uu ka hor yimaado TikToker Hanad Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaano waan gariiray